horta maanta waxaan rabaa inaan qoftaan la hadlo ama qoftaan ama qofkaan adigu wuxuu yahaba waxaan inaan la hadlo waxaan meesha yaala okay dhageyso horta naagnimada in lagu soo ordo wax adag waa wax fiican ma aha waan ku xisaabinaya dhageyso dhibaatooyinka dumarka ay qabaan maadada koowaad familkaaga iyo reerkaaga ka dhex baxaysaa nin islaameed aa raacaysaa reer u dhaqaysaa koow maadada labaad bil walba books always la dhaha isticmaalaysaa oo adoo dabada wax kaaga jiraan baa saa u wareegaysaa magaalada waana dhibaato taas midda saddexaad walacaa noqonee waa mantagee dhareeraa daadine ma dul qaadi kartaa uuraa yeelane xaamilaa noqone culays waa ma qaadi kartaa guriga howshiisa ma qaban kartaa naa walaalay ma iska joogto walaalow ma iska joogto meeshaan dumarnimada khayrkaa u maleysid khayrkaa ma soo horeey ma iska joogto anaga dumarnimadeen ilaahay baa naga dhigay oo ku qanacsana alxamdulilah wax walba nooga imaadana waa qaadanaynaa laakiin adi waxaan ma qaadi kartid dhibkaan oo dhan muu dul qaadi kartid waxaaba kaa iloobaba fool haddaad ogaan lahayd foosha hal maalin iska dhaafe hal sikin xataa naaga ah ma dhihi lahayd wallaahi bilaahi tallaahi foosha haddaad ogaan lahayd jah haya xasuusan annaga yaa dumarnimadii waan ka bixi lahayn alla ka cabsi aa u joognaa alla ka cabsi marka walaalow iska noqo wallaahi iska noqo waa dhowdaha iska noqo weli meelo maa furfurino xabadkaama soo taagno maxaa kaa jeexne iska noqo iska noqo iska bax iska noqo waa ku barya iska noqo meeshaan dhibayaa iska noqo